kulanti wanaagsan asxaabay meel kastoo naga daawanaysaan kusoo dhawaada barnaamijkeennii ugu horreeyay maanta oo talaada taariikhdu waa 31 Maarso. haddaba barnaamijka waxaynu ku qaadanaynaa dhammaan wararkii ugu waaweynaa ee soo kordhay intaynu kala maqnayn xaaladda dagaalka ka soconaya gobolka Bariga Dhexe. haddaba iyadoo qodobo xasaasi ah oo muhiim ah ay noo soo socdaan marka hore waxaynu ku bilaabaynaa ciidanka Israa'iil ayay fooda isgeliyeen xoogaga kumaandooska Xisbullah ee la yiraahdo Ridwan. dagaal aad u qaraar ayaa ka dhacay dhanka xadka. weerar culus ayaa lagu qaaday ciidanka Israa'iil ilaa markii dambe ciidamada Israa'iiliyiintu ay u yeertaan diyaarado iyo taangiyo iyo alaab kale culus markii looga awood roonaaday dagaalka. qaar ka mid ah ciidankaas ayaa la qararamsaday oo ay ku jiraan saraakiil Israa'iil oo markii ugu horeysay qiratay askar in looga laayay dagaal ay la galeen Xisbullah. haddaba xaaladda dagaalka dhulka ah ayaa sii xoogaysanaya tan iyo markii Netanyahu uu yiri ciidankaygu waxay gaari doonaan ilaa webiga la yiraahdo Litani halkaas oo aanu ku qabsan doono aanu ku raaxaysan doono si ay markaa bilow ugu noqdaan Israa'iil al-Kubra Israa'iil shaweyn dhulkaas Lubnaan qaad soo qaatalin. haddii dhulkan la iska qaadanayo kala yaqaad madax badan qalalaya ciyaar ma ku qaadanaysaan. haddaba markaan idin tuso wararkii ugu dambeeyay saakay. haddaba ciidanka Israa'iil ayaa qirtay saakay 4 ka mid ah askartiisa inay ku dhinteen oo uu ku jiro sarkaal sare dagaal qaraar oo ka dhacay koonfurta Lubnaan. haddaba ciidanka Israa'iil ayaa qiranaya 4 ka mid ah ciidamadiisa in halka lagu qararamsaday waxayna ka tirsanayeen guutada la yiraahdo Naxal. waxaa sidoo kale la sheegay inay ku dhaawacmeen 3 kale dagaal culus oo ka dhacay koonfurta Lubnaan. war hadda isagana soo dhacay waxa leeyahay dhaawac 6 gaaray 4 waa la qararamsaday. meeshay marka waxa leeyahay su'aal taagan 4 naga dhimatay oo sarkaal ku jiro meesha ay nimankanu dhaheen meeqa baxday. xisaabtaasu 4 caadi ma ahane nimanka 4 sheegtay meeqa baxday wara 4 baxday kuleeyeen 4 waa ku deysay kuleeyeen. marka dagaaladu dhulka ah sidaas marka ay dagaalo qaraar u ahaayeen. waayahay sheekooyin kale oo xiiso la noo soo socda oo ay ku jiraan dadkii qaliijka ku noolaa oo noloshoodu halis ku jirto. hadda qaliijka wixii ku nool noloshiisu halis ay ku jirtaa leeyahay. haddaba waa idin kaga warrami doonaa xaalkaasu sida uu yahay. balse markan waxaynu u gudbaynaa ninkii Trump ahaa ayaa laga soo xiganayaa inuu wareeray awalba ogeyn wareerkiisa inuu hadda leeyahay warniyow dagaalkan waa isaga baxayaan Hormustan ha haysataa deerabto meel u dhaqaaqo laaya oday maalin walba sheeko cusub laga keenaa. mar wuxuu leeyahay ciidan infantry halka ku daadina mar kara ku daadina warbaahintan way daba taagad hal eray haduu yiraahdo way soo qaataan waxay rabaan de adduunka waalidiisa inay tusaan. hadda muxuu leeyahay war Hormustooda ha haystaan haday rabaan mar kale aan ka fujin doonaa laakiin dagaalkan horta iska joojino dagaalkan waa lagu rafaaday. oday markaas hurdo la'aan ku dhacday walwalkii ku batay dhibaatadii ku badatay walaahowgii ku batay wax yar oo moodayay in lagu soo afjarayo wax weyn ku noqday marka xaalka ku xumaaday. haddaba marka aan tuso wararkii ugu dambeeyay sheekada laga qoray. haddaba Trump waxa uu sheegay inuu diyaar u yahay in dagaalka la iska soo gabagabeeyo oo uu kula jiro Iran iyadoo sidoo kale ay sii soconayso xiritaanka Hormuz oo Iran ay iska sii haysanayso ayuu rabaa inuu soo gabagabeeyo. jirada la yiraahdo Wall Street Journal ayaa soo xigatay mas'uuliyiin ka tirsan maamulka Mareykanka waxay sheegeen in Trump uu hadda doonayo oo iyagana uu u sheegay inuu diyaar u yahay dagaalkan iyo weeraradan militariga uu kula jiro Iran in la iska joojiyo inkastoo uu iska sii xirnaanayo Hormuz. marka muxuu leeyahay waxaan waa iska joojinayna wadahadalladan Pakistan iyo waxaan ka socda aan xooga saarno aan meesha ka lug baxsano aan ka cararno leeyahay. hadda saasuu leeyahay waxay kadib waxa maqlay isagoo hadana hanjabay oo dhahay midaan idin ku dhigo waa yaabaysaan. marka odaga warkiisu waxa leeyahay meel loo raacaba male xaalka ku wareersan. waayahay qodobka isaguna halkaas kaga gudbaynaa sheekada marka muhiimka ah ee saakay barnaamijka inuu kugu hayo
nolosha waxaa leeyahay dadka ku nool dalalka khaliijka halisay ku jirtaa. sababtu marka maxay tahay oo halis ay ugu jirto? hadda waxay ka soo bilaabatay sheekada Kuwait, way soo soconay Qatar, Imaaraadka, Sacuudiga, kulli way soo mari doontaa leeyahay haddaan hadda xal loo helin dagaalkan aan la joojin. marka nimankan khaliijiyiinta ah biyaha ay cabaan oo biyaha badda ee dhanaanka ah oo mishino inta lagu xiray warshado loo sameeyay la macaaninayo, biyahaas badda cabaan sidoodaba ceelal biyo laga cabo ma jiraan ama waa yar yihiin. wax oo biyo ku filan dadka ceel biyo ma la hagaalo meesha, waa tagay shidaal nafta leh ku soo baxay baasiin iyo wax la ku soo baxay biyo dad ma jiraan. marka waxay ilaahay marka uu siiyay nimco ah badda biyaheeday macaansadaan mishina lagu xiraa warshadaha. marka waxa la yiraahdaa warshadaha biyaha macaaneeya, biyaha badda macaaneeya, warshada waaweyn qolo walba marka leedahay. haddii marka bini aadamku biyo waayo noloshiisu maxay galaysaa khatar. khalaas biyo la'aan hadday dhacdo maxaa yaala? wax shaqeynaa male. wax kasta waxay ku nool yihiin biyaha. wax kasta biyo la'aan ma dhaqaaqi karaan. noolaha bini aadamka waxa dhan biyo la'aan ma dhaqaaqi karaan. marka maxaa dhacay? xaruntii ugu weynayd biyaha sifaynaysay Kuwait ayaa nagta laga saaray. kuwa kalena dee waa ku xigaan dee meel haddii Kuwait lagu dhuftay Qatar iyo Sacuudiga Imaaraadka xaggee u jiraan Bahrain iyo kulligood nagta laga saaraa. waa qayliyeen marka naftaa naga baxaysa dee wallahi biyaha waa naftaa naga baxaysa. وجعلنا من الماء كل شيء حي سماه إلهي مرهنه سبحانه وتعالى. بياس wax kasta lagu nooleeyaa bini aadamka biyo la'aan haduu noo maxaa dhacaya? waa la isqabsada marka sidee ku dhacdaa leeyahay maxaa dhacay? yaa weeraray meeshaan horta nimanka yaa naftooda iyo dhibaysa khaliijiyiinta yaa raba inay dhintaan yaa raba. marka Iiraan lagu eedeeyay Iiraan waxa la yiraahdaa ayadaa duqaysay. sabab maxaa waaye? warshad sidaas oo kale Iiraan ay ku leedahay dhankaas oo biyaha iyaduna sifaysa. hadda koor waxaa duqeeyay Mareykanka iyo Israa'iil marka tii uga argudareys. Iiraaniyiintu markay soo boodeen waxay yiraahdeen dadkan carabta masaakiinta ah annagu inay dilna ma rabno, biyahoodana ma weerin. annaga waxaan idin sheegaynaa waxaa duqeeyay Kuwait Israa'iil cadaymiin waa keenina. yab carabti waa yaabeen. Iiraan marka hore u maleynayeen Iiraan maxay ka rabtaa? Iiraan ma naftaa ma inta yartooyda ku daba hartay rabtaa inay ka qaado maxaa dhacaysa walaal? Iiraan marka waxa jira annaga mani hasha kulula dadkan masaakiinta muslimiinta walaalaheena oo dariskeena annagu biyo la'aan ma dhigin oo naftooda ma dhaafinin ee dadka weeraray warshadahan oo raba inay dadkan baaba'aan oo ay dhintaan waa cadawga waxay yiraahdeen Israa'iil waaye. sheekadii marka saakay hawaday maraysa hawada. haddaba marka aan idin tuso wararkii ugu dambeeyay laga qoray wakaalada wararka Turkiga Anadolu waxay leedahay Iiraan waray soo saartay waxay tiri Israa'iil iyada ayaa duqaysay goobta biyaha la macaanisa ee dalka Kuwait. anaga waxba yaana la eedeynina tiri waxa meesha duqeeyay oo meesha aaday oo dadka naftooda biyo la'aan inuu dhiga rabaan nimanka way dheen. marka sheekadaasu halkaas ay maraysaa. dhanka kale markab weyn oo qaada shidaalka oo markiiba qaadi kara 1,200,000 oo barmiil miyaaleeri oo shidaal wada oo ku xiran dekada Dubai ayaa waxa ku dhacday diyaarad drone oo loo malaynayo Iiraan inay ka timid. dab ayaa qabsaday. marka mas'uuliyiinta Imaaraadku waxay sheegeen inay la tacaalayaan markabkaas damintiisa, shaqaalihii ayay badbaadiyeen. marka wax hadda badda uu ku daadiyay shidaalana wali ma jiraan leeyahay, laakiin xaalad halisa ayaa ka dhalatay markabkaas. haddaba marka aan idin soo wararkii ugu dambeeyay Imaaraadku waxay sheegeen inay daminayaan oo marka ay ka shaqeynayaan daminta markab qaada shidaalka oo Kuwait ay leedahay.
haddaba xukuumadda Dubai ayaa waxay sheegtay inay ku guuleysteen kooxaha dabdamiska ah in markabkaasi la damiyo oo markaa laga hortago inuu dhibaato kale geysto kadib markii la sheegay inay ku dhacday diyaarad la aaminsan yahay inay ka timid dhanka Iran. ma ujeedaa marka iyaduna halkaas ayuu saakay maraya. dhanka kale weerar ayaa la isdhaafsaday dhanka Xisbullah weeraray soo qaadeen, Iran weeraray soo qaaday, Mareykan iyo Israa'iil iyaguna weerar kala duwan ay qaadeen. hawsha way socotaa dhanka kale Sacuudiga iyo Kuwait iyo Bahrain iyo Imaaraadka kulli waxay leeyihiin weerar iska difaacnay gantaalo iyo diyaarado daroorisa. shaqadaas iyada way socotaa ma joogsanayso. nolol maalmeedkay ka mid tahay in walba ma subaxii la soo ziyaarto xalay see ku bariday xaalkaagu soo yahay nimanka Iiraaniyiinta caadiba. waxaa sidoo kale war soo saaray nimanka muqaawamada Ciraaq oo iyaguna sheegay 19 weerar inay fuliyeen 24 saac ee la soo dhaafay. haddaba qaybtan barnaamijka waxaynu ku faaqidaynaa oo ku soo qaadanaynaa marinka Hormuz maxaa ka socda. Mareykan waa furayaay kaalay NATO ya caawiyay war waxbaan ku soo direynayay war waay ilaa hadda wax u soo dhiiraan waxay taagan tahay ninka rag ah meeshaan ay yimaado ara adduunka ugu awood badan iyo baqay balartay ar meeshaan soo mar ama markab adiga xoog ku soo marsi halka sheekadu marka halkaas taad cid alla cid ay rabtay marka Iran gudbanaysa adiga soco China say mid jimci inuu soo maraan rabeen qolaa qashqashaaday oo maraakiib kale inay ku daba gambadaan iyo waxbay rabeen. xogaa marka way sugeen waxay raadeen Mondayda aan gudbaynaa labadan barwaaska badda iskaga baashaalayna. shalay marka galabkii labadii markab oo shirkad Shiinaha isku leeyahay ayaa saas ugu laafiyooday meesha meena ku jirtay waxaan la lahaay tartiibtooda iska mareen. waxaa leeyahay waa mari kartaa cid kasta dhowr dawladooda loo ogolaaday shirkadahooda inay maraan. Turkiga, Pakistan, Hindiya, Ruushka, Shiinaha waxaasoo dhan waa iska gudbayeen. Japan xataa hadda waa loo fasaxay qaar loo fasaxay way gudbayeen mar dhow oo dawladda Japan waxay sheegtay Iran inay isku waafaqeen in maraakiib meesha ugu xaniban loo sii daayo. Thailand oo kale, Thailand oo kale iyaduna waa loo fasaxayaan. cid alla cid ay rabaan u fasaxayaan. annaga meeshan maamulnay annaga iska dagaalka haduu joogsada xataa wallahi ka teedeen meesha qof iska maray inuu soo cashuura la dhiibaan isbaaraba noo taal soo Masar uma taalo kanaal Suez halkan dhanaga noo taalay meeshan annaga ba iska leh. sheekadu marka halkaas arid tusoo wararkii ugu dambeeyay Al Jazeera waxay leedahay jirnada weyn ee Mareykanka yiraahdo Wall Street Journal waxay leedahay laba markab oo kuwa shixnadaha qaada ah oo rarka wada oo Shiinuhu leeyahay ayaa ka gudbay Hormuz subaxnimadii Isniinta. haddaba wargeyska Wall Street Journal wuxuu leeyahay maraakiibtan waxaa iska lahayd shirkad Chinese ah waxaana la sheegay inay subaxnimadii Isniinta halka ka gudbeen oo markaa si nabadgelyo ay ku mareen. marka wax miinaayo wax qarraayo oo yaala male ninkii awood laha soo maraaleen miinada laftirkeeda waxay soo kacay markii Mareykan meelaha yimaadeen loo inta kala waajiiftaa sheeko wallahi meesha ka socod. barnaamijkii waa laga intaa saxaabay fakari aragti waxaad hayso soo qor haddii alla idin wixii soo kordha barnaamijka kalena waan idin la socodsiin doonaa. nabadgelyo.